magaalada Washington ee uu hogaaminayo Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa faahfaahin ka bixiyay safarka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku joogo dalkaasi Mareykanka. Wasiirka oo faahfaahinaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan soo socota. Fadlan inta aanad dhegeysan inoo dirsadal subscribe leesina share gareysay asxaabtaada u gaadho kuna soo dhawaada. maanta waftigii Jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugnaa magaalada Washington ee uu hogaaminayo Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxay la kulmeen guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Congress. waxaa aad la isula soo qaaday arrimaha Somaliland iyo Mareykanka sidii looga wada hadli lahaa. runtii waxayna arrintaasi ku dhammaatay si dhaxalgal ah oo labada dhanba isla qaateen wixii fakera ee la isla soo dhigay. waxaa kaloo sharaf u ah guul madaxweynaha iyo waftigiisu in isla maanta aqalka senatesku ansixiyeen mooshin ay kaga dalbanayaan xukuumadda qaabkii Somaliland iyo Mareykanku u wada shaqayn lahaayeen inay warbixin rasmiya ka keenaan. wayna sii socon doonaan shirarku horena waa u jireen. marka la isu soo ururiyo inta aan markhaatiga ka nahay dhammaan shirarka sii socday ee ka dhacay dalkan aanu joogno iyo kuwa dhacayaaba waxay u egyihiin kuwa u hogaaminaya guul ummadda reer Somaliland meel kastay joogto. waana runtii arrin la odhan karo waa markii koowaad ee arrin sidan u taxana ah iyo shirar daqiiqadba daqiiqad u kala baxaya ay Somaliland ku kala bixiso dalka Mareykanka. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ummadda reer Somalilandna waxaan la fariintaa leeyahay shirkan ama safarkan madaxweynuhu hogaaminayo waa safar runtii meedho dhalay. waxaadna ka arki doontaan natiijada dambe iyo taariikhda soo socota. aad iyo aad baan idin salaamay.